بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعنا وناكسن صاحبي الهلكن وحلك ورارك كسو دوادا ورك حلك ورارك قضبدا داوان دونتان وحاكمدا محال لغير هذا الكيوتشي مدحوين فرماجو تلابدا وقادة مكدقانتا ويرر وكو قادة يعفيسك رجل وزار الروبلي قرشا حقيقة فرماجو محوية تفاصيل إرادة ينكو سمينتونا قضبتي وشيدية مدحوينها وقدم هذا مدحوليت كدستوريها سياسي عبد الرحمن عبد الشكور ورسمنا وحا وبدامية قضب كوغو أدق وقت كانوا كشقين يا مدحوين فرماجة محوية سببتها برنامج كايانا كوغسو قد بندونا maamulka gobolka banaadirna waxa uu garab ka istaagay in banaanbax lagu qabto muqdisho waxaana uu aqoonsaday dambi weyn maxay tahay sababta waan idin soo gudbin doonaa saaxiibayaal al-shabaabna weerar culus ayay ku qaadeen degmada balcad ee gobolka shabeellaha dhexe faahfaahin dheeraad oo dagaalkaasi ku gadaamanaya daawan doontaan xubnaha beesha caalamkana qoraal adag iyo mar kale la wadaageen xubnaha golaha wadatashiga qaran waxaana ay ku baaqeen dhamaystirka iyo dardargelinta doorashooyinka dalka qodobadaasi kuwa nagu soo kordhay ayaad ku daawan doontaan warkayga saaxiibayaal ee haddii aad nagu cusubtahay fadlan nagu soo biiro subscribe saar like share la wadaag saaxiibada aragtidana waa inoo muhiim commentiga nagu reeb waxaase naga xasuusina haddii aad joogto waqtiga salaada inaad soo gudato waajibka rabbi kadibna dib ugu soo laabato daawashada muuqaalkan qodobadii aad daawateen oo dhammaystiran u diyaargarooba aynu ku bilowno madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga uu ka dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa habeenkii xalay jeediyay qodbad dheer oo kaga hadlay xaaladda guud ee siyaasadda dalka iyo dardargelinta doorashooyinka dalka maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa cod dheer ku soo dhaweeyay shirkii golaha wadatashiga qaran ee dhowaan lagu soo gabagabeeyay magaalada caasimadda ah ee muqdisho waxaa sidoo kale uu bogaadiyay howlgallada kala duwan ay wadaan ciidamada qalabka sida kuwaas oo ku tilmaamay inay dhabarka u xirteen howlgallo ballaaran oo lagu xaqiijinayo amniga guud ee qaranka madaxweynaha muddaxileedkiisa dastuuriga ka dhamaaday maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa dhinaca kale ku adkeeyay xubnaha golaha wadatashiga qaran dardargelinta iyo qabsoomidda doorashooyinka dalka isaga oo hoosta ka xariiqay in xubnaha golaha wadatashiga qaran ay mas-uul ka yihiin qabsoomidda doorashooyinka soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxa uu dhinaca kale xuseynay marnaba aan loo adkaysan karin in la boobo dhulka danta guud oo siyaasiyiinta qaarkood ku howlan yihiin taasoo la aaminsan yahay inuu ku dirayay ra-iisul wasaare roble sidoo kale isla khudbadiisa intii uu wada waxa uu ku dhex duray dhowaan ra-iisul wasaare roble tallaabadii uu qaaday in lacagta uu dib ugu fasaxay dowladda imaaraadka carabta waxaana maxamed cabdullaahi farmaajo uu sheegay in loo baahan yahay waqtigan aan lagu degdegin siyaasadda arrimaha dibadda si kastaba dadka siyaasadda korfeeya ayaa durba muujiyay siyaasiga cabdiraxmaan waa maxamed cabdullaahi farmaajo madaxweynaha muddaxileedka uu ka dhamaaday inuu yahay qof isdhiiba isla maraantaana qaadaya tallaabooyin uu isku boorqarinayo waa sida lagu dhaliilaya siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame oo maanta shir jir ay ku qabtay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa naqdin dheer ku sameeyey khudbadii uu jeediyey maxamed cabdullaahi farmaajo siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur oo jeediyo khudbad soconaysa 11 daqiiqo ayaa ka hadlay dhammaanba waxa ay qusaysay khudbadii uu jeediyey maxamed cabdullaahi farmaajo sababta waqtigan ku soo aadisay iyo tallaabada xigta ee laga filay inuu qaado madaxweynaha muddaxileedkiisa ka dhamaaday cabdiraxmaan cabdishakuur waxa uu ugu horreyn xusay in waqti walba oo maxamed cabdullaahi farmaajo uu soo koro culays siyaasadeed oo culus oo gudaha iyo dibadda ah uu qaado tallaabo uu isku boorqarinayo isla maraantana uu ku muujinayo inuu la dhacsan yahay sida loo wado doorashooyinka dalka sidoo kale waxa uu carabka ku adkeeyay in maxamed cabdullaahi farmaajo aysan marnaba raalli ka ahayn in la qabto doorashooyinka dalka isagoo dhinaca kale carabka ku adkeeyey in uu ka shaqaynayo sidii loo hor istaagi lahaa qabashada doorashooyinka dalka dagaallo isku qaadaan qabiilada wadadega magaalada muqdisho iyo ciidamada qalabka sida ayuu tilmaamay inay qayb ka tahay qorshayaasha uu wado maxamed cabdullaahi farmaajo waa sida uu yidhi cabdiraxmaan cabdishakuur warsame siyaasigu waxa uu sidoo kale carabka ku adkeeyey in waqtigan qorshaha ugu ballaaran ee madaxweynaha uu wado ay tahay in uu weerar cusub ku qaado xafiiska ra-iisul wasaare roble kadib weerarkii 27 Diseembar lagu qaaday xafiiska ra-iisul wasaaraha siyaasiga cabdiraxmaan cabdishakuur warsame ayaa ra-iisul wasaare maxamed xuseen roble ugu baaqay dardargelinta iyo qabsoomidda doorashooyinka dalka isaga oo tilmaamay in ra-iisul wasaaraha looga baahan yahay in mar kale uusan maxamed cabdullaahi farmaajo degin loona baahan yahay inuu arrintaasi mar hore ka hortago waa sidoo hadalka u dhigay waxa uu qeexay in loo baahan yahay ra-iisul wasaare roble inuu sameeyo ciidan isaga ka amar qaadanaya siyaasiyiin adeecsan iyo doorasho la dardargeliyo
oo si sax ah loo maareeyo oo sidoo hadalka u dhigay hadalka siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame sidoo kale waxaa la tilmaamay inay qabaan aragtidaas siyaasiyiin fara badan oo qaba in Maxamed Cabdullaahi Farmaajo khudbadii uu jeediyay ay tahay mid aan ka turjumaynin fikradiisa gaarka balse ka hor imaanaysa dhammaanba tallaabooyinka caadiga ah ee uu qaado marka loo eego qodobka xiga markaan eegnana saaxiibayaal maamulka gobolka Banaadir ayaa si weyn kaga hor yimid in banaanbax ka dhana madaxweyne Farmaajo lagu qabto magaalada caasimadda ah ee Muqdisho kulan aan caadi ahayn oo isugu yimaadeen xubnaha maamulka gobolka Banaadir gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo taliska qaybta guud ee booliska gobolka Banaadir ayaa looga arrinsaday hadallo maalmihii dambe soo ifdaxay oo la xiriira in magaalada caasimadda ah ee Muqdisho la qorsheenay in lagu qabto banaanbax ka dhana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo isla markaana lagu taageerayo ra'iisul wasaare Roble banaanbaxan oo horboodayo Axmed Macalin Fiqi wasiirka hore amniga dowlad goboleedka Galmudug ahna xildhibaan ka tirsanaa golaha shacabka ee waqtigoodu uu dhamaaday ayaa la aaminsan yahay in lagu doonayo in lagu cambaareeyo weerarkii 27 Diseembar lagu qaaday xafiiska ra'iisul wasaare Roble ha yeeshee maamulka gobolka Banaadir ayaa arrintaasi ku tilmaamay arrin dembi qaran ah oo aan loo baahnayn waqtigan caasimadda lagu qabto afayeenka maamulka gobolka Banaadir Saalax Xasan Cumar Saalax Dheere ayaa sheegay in maamulka gobolka Banaadir ay soo dhaweeyeen shirkii golaha wadatashiga qaran sidoo kalena ay la dhacsan yihiin hanaanka loo wada doorashooyinka dalka siyaasiyiinta dhaqaaqyada ka wada magaalada Muqdisho ayay ugu baaqeen in loo baahan yahay inay aadaan deegaan doorashadan ay u diyaar garoobaan waxaase maamulka gobolka Banaadir uu meel dheer ka istaagay in banaanbax lagu qabto magaalada Muqdisho waqtigan fawdo iyo banaanbaxyo laga kiciyo Muqdisho oo shacabkeedaan u daneynin raalli kama noqonayn sida daraadeed marnaba ma aqbali doono in magaalada Muqdisho lagu qabto banaanbaxyo ka hor imaanaya amniga guud ee caasimadda ayuu yiri afayeenka maamulka gobolka Banaadir si kastaba ha ahaatee qorshayaal dhowr ah oo banaanbax looga dhigayo magaalada Muqdisho ayaa sii xoogeysanaya inkastoo maamulka gobolka Banaadir uu furo u yahay tallaabooyinka la doonayo in looga hor yimaado banaanbax caasimadda ka dhaca kaasi oo ka dhan ah madaxweynaha madaxweynaadka ka dhamaada inkastoo la leeyahay banaanbaxyada waxa aad ula dhacsan wasaaradda amniga wasiirkeeda Cabdullaahi Maxamed Nuur iyadoo ra'iisul wasaaruhuna arrintaas uu taageersan yahay waa hagaag saaxiibayaal warkayga gabagabadiisa ayaan u soo dhawaaneynaa xubnaha beesha caalamkana waxay war-saxaafadeed ka soo saareen shirka golaha wadatashiga qaran iyagoo ku adkeeyay dardargelinta qabsoomidda doorashooyinka dalka war-saxaafadeed ka soo baxay saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa lagu sheegay inay garwaaqsan yihiin shirkii golaha wadatashiga qaran ee socday 3 ilaa 9 Janaayo ee lagu gaaray afgarad la isku raacay ku saabsanaana wax ka beddelka iyo dib u habeynta habraac iyo dadejinta waqtiga doorashada golaha shacabka waan ku faraxsanahay ra'iisul wasaaraha iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay qaateen go'aamo ku saleysan wada tashiyo lala yeeshay bulshada rayidka wakiilada haweenka iyo xubnaha mucaaradka waxaan ugu baaqaynaa dhammaan hogaamiyaasha siyaasadda Soomaaliya in ay danta qaranka wax walba ka hormariyaan ayna mudnaanta siiyaan soo gabagabeynta hanaan doorasho oo dadka Soomaaliyeed si weyn u aqbalaan iyo inay ka fogaadaan daandaansi ka weecan kara hanaanka oo kordhin kara qatar iska hor imaad ama rabshado ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka ka soo baxay xubnaha beesha caalamka sidoo kale waxaa loogu baaqay dhammaanba xubnaha golaha wadatashiga qaran dadejinta kamira dhalinta qabsoomidda doorashooyinka dalka iyo jadwalkii doorasho ee dhawaan lagu gaaray magaalada caasimadda ee Muqdisho bayaanka ka soo baxay xubnaha beesha caalamka ayaa ku soo aadaya iyadoo lagu heshiiyay muddo 40 cisho oo ka bilaabanaysa 15 Janaayo kuna eg 25 bisha Febraayo lagu soo gabagabeeyo doorashada xildhibaanada golaha shacabka inkastoo dad badan ay qabaan in arrintaasi aan laga dhaweyn karin qodobka ugu dambeeya warkayga ku jira markaan eegnana saaxiibayaal al-shabaab ayaa weerar culus oo dad badan ay ku dhinteen ku qaaday fariisimaha ciidamada dowladda ku lahayeen degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe faahfaahin dheeraad ayaa laga helayaa weerar culus oo ka dhacay duleedka degmada Balcad ee gobolka Shabeellaha Dhexe halkaas oo al-shabaab weerar culus ay waaberigi hore saaka ku qaadeen dadka ku dhaqan tuulada hoos tagta degmada Balcad oo lagu magacaabo Qalimow ayaa sheegay in weerar culus al-shabaab ay ku qaadeen halkaas waxaana dagaalka ku dhintay 3 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda halka 4 kalena ay ku dhaawacmeen kuwaasoo dhaawacooda loo soo qaaday magaalada caasimadda ah Muqdisho al-shabaab oo ka hadlay dagaalkaas ayaa warbaahintooda ay tabisay in weerarka ay ku qaadeen tuulada Qalimow ay kula wareegeen saanad military inkastoo aysan jirin warar madax bannaan saraakiisha ciidamada gaar ahaan qaybta 27aad ayaa dhankooda sheegay in al-shabaab weerar kaga yimid ay iska caabiyeen isla markaana ay kala hortageen weerar ogaal culus al-shabaab ayaa muddooyinkii ugu dambeeyay weerar ku dhufo oo ka dhaqaaqa ku qaaday gobollo badan oo dalka iyagoo ugu dambeeyeen dagaalkii ka dhacay
deegaanka Bacadweyne deegaan kale ee baxda la yiraahdo ka tirsan gobolka Galgaduud iyo deegaanka la yiraahdo Cadakibir hoostaga degmada Cadaado waxaana sii kordhaya weerarada kala duwan oo ka geysanayaan gobolada dalka saaxiibayaal warkaad ka daawanaysan xulka wararka waa inaga inta fadlan naga cusubtaan ugu soo biiro subscribe share like share loo wadaag saaxiibada aragtadana waa inoo muhiim kama tagana ugu rabtaan kula dambana